siraha cilmi nafsiga sidee qof jacayl daran ugu abuuri kartaa si aanu weligii kaaga tegin. mid ka mid a dhakhaatiirta sida weyn u baratay cilmi nafsiga John Alex Clark ayaa wuxuu sheegay in sirta maskaxda ee jacaylka iyo sida qof looga dhigo mid aan weligii meel u dhaqaaqin ay tahay arrin fudud balse shaqo adag u baahan. haddaba daawade, ma og tahay jacaylka inaan la xakamayn karin? ma og tahay in haddii uusan qofku kaa helin aragtida ugu horraysaba aanay meeshaas fursadi kaaga bannaanayn adiga? ma kula tahay inay adag tahay in qof lagu abuuri karo jacayl waali ah oo weliba qoto dheer? haddii aad haa ku jawaabtay daawade, haddaba waxaad aaminsan tahay fursadda iyo jacaylkuba inay yihiin kuwa jira. waxaa kaloo jira dad badan oo u arka jacaylku inuu yahay wax aan la beddeli karin. hadduu isbeddelana markii horeba aanu meesha jacayl oolin ee rabitaan keliya uu ahaa xaalku. cilmi baadhis baaxad weyn oo muddo sannad ah socotay ayaa lagu caddeeyey inaad xakamayn karta jacaylka, waxaana taa lagu samayn karaa keliya maskax joogto ah misena awood leh. waa arrin ku xidhan sida aad caqligaaga iyo maskaxdaada u adeegsanayso. jacaylku kama duwana dareennada kale ee maskaxeed ee maalin kastayna soo mara, sida cabsida, welwelka, hinaasaha ama masayrka, farxaddarrada aad naftaada ku qabto, walaaca faraha badan leh. dareennadaasi waa kuwa aad xakamayn karto. sidoo kalena jacaylka waad xakamayn kartaa, balse waa inaad leedahay maskax shaqaynaysa oo si wanaagsan u fakaraysa. 5 sano ka hor markii cilmi baadhistan la samaynayey ama la bilaabay, waxaa la aaminsanaa in jacaylku uu yahay wax iska yimaada, balse hadda waxa soo baxday in la maamuli karo oo adiga ay kugu xidhan tahay. sidoo kale waxaa kuu fududaanaysaa inaad jacayl xaddaaf ah ku beerto qof kale, waxaadna samayn kartaa inuusan qofkaasi weligii kaa tegin. haddii aad doonayso inaad ku abuurto ama aad ku guulayso jacayl aan caadi ahayn, isku day arrimahan soo socda sida jacaylka lagu qaado iyo nafsiyadda ka dambaysa. haddaba ka hor inta aanad ku fakarin inaad soo marto waddada oo jacayl waali ah aad qof ku beerto, waa in marka hore aad barato nafsiyadda iyo cilmiga la xidhiidha arrintaas. waxaadna ogaataa in aysan ahayn arrin la xidhiidha indhasarcaad ama sixir. xataa mararka qaar adigoo aan garanaynin siraha adiga iyo dadka kaleba, waxaa qaybta dambe ee maskaxdaada ku kaydsan diiwaan dheer, waxaana ku qoran diiwaankaas waxa aad ka doonayso qofka aad jacaylka la wadaagi doonto iyo waxa isla qofka ku saabsan ee aad xiisayso. cilmi nafsigu wuxuu taa u yaqaanaa ama uu u garanayaa khariiradda jacaylka. haddii qofku uusan lahayn waxyaabaha ku qoran diiwaankaas maskaxdaada ku jira, si dabiiciya ayay naftaadu u diidaysaa oo aad uga fogaanaysaa qofkaas. waa sababtaa midda keenaysa in qofna aad jacayl u qaado, kuwo kalena ay iska yihiin saaxiibo keliya. qof kasta diiwaankiisa wuu ka duwan yahay qofka kale. waxyaabaha ku qoran waxay ku salaysan yihiin lambar 1 qiyamkaaga, lambar 2 waxaad aaminsan tahay, lambar 3 khibraddaadii hore, lambar 4 taariikhdaada, lambar 5 xidhiidhadaadii hore ee aad soo martay. haddii aad gabadh tahay, waxaa dhici karta gabadh kale oo saaxiibta ahi in ay jeclaato inaad u aragto qof iska caadiya ama inuusan qurux badnayn. taasina waa khariiradda jacaylka ee dhabta ah oo labadiinnuba waad kala duwan tihiin. haddaba marka aad aragto qof buuxiyo shuruudahaas adigoo aan isdareemaynin, ayaad qaadaysaa jacaylka. kadibna waxa uu soo gudbayaa qaybta maskaxda ee soo jeeda ee aad maalin kasta isticmaasho. kadib ayuu dareen xoogaystay kugu noqonayaa. waa intaa muuqaalkeennu saaxiibayaal. waxaan rajaynayaa wax badan idinka caawin doonto. haddii aad ka heshay muuqaalka, fadlan like noo saar, taasi waxay noo tahay dhiirigelin. inta aan ku kulmi doonno muuqaalkeenna kan xigana, waxaan idinku dhaafay nabadgelyo.